Warbixin ay soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in xoogagga M23 ee ka dagaalama gudaha dalka DRC aynan ilaalinin heshiis xabad joojin ah oo horey loo gaaray. Xarunta sirdoonka JMAC oo qayb ka ah Jimciyadda Quruumaha ka dhexeysa ayaa arrinkan shaaca ka qaaday. Warbixinta ayaa la diyaariyay laga soo bilaabo 26 bishii Diseembar ee sanadkii hore ilaa 3 bishan Janaayo. Qubuurada falanqaynta arrimaha sirdoonka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in bariga Congo lagu arkay dhaqdhaqaaqyo looga shakisan yahay falagada M23, inkastoo kooxda laga doonayo inay si buuxda uga baxdo gobolkaasi. Tani ayaa ku soo beegmaysa kadib markii Arbacadii ay kooxda M23 beenisay wararka sheegaya inaysan weli dagaalahanadeeda ka bixin aagga loo yaqaan Kimumba. Waxay sheegtay in halkaasi ay ugu dambeysay 23 bishii hore. Bishii 11 ee sanadkii 2022 ayay ahayd markii madaxda jaaliyadda Bariga Afrika ay gaareen heshiisa in kooxda inaynan ku sii sugnaan deegaano ay ka qabsatay dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo ee DRC. Sanadkii hore waxaa dagaalo ka soo cusboonaaday Kongo ku barakacay in ka badan 450,000 oo qof. Dowladda DRC, Midowga Yurub iyo Qaramada Midoobay ayaa dowladda Rwanda ku eedeeyay inay garab siiso falagada M23, inkastoo xukuumadda Kigali ay eedeymahan gaashaanka u daruurtay.